الله وبركاته. horta maalmaha dambe waxa Facebook yani looga taag la yahay horta waa dumar ilaahayna waa tuu sheegay subhanahu wa ta'ala dumarku ayna xishoodaan ee asturnaadaan yani gurigooda ay ku ekaadaan laakiin ilaahayna ma dhihin yani dumarka waxa idin sheegan ama xilaa idin qabtaan maanta waxaad arkaysaa gabar leh madaxweynaha raba Soomaaliya ka noqdo waxaad arkaysaa gabar la yiraahdo magaceeda farxi iskoor oo yani maanta waxa hadda aniga afkayga xitaa qaba karin يعني قلمي وحنا لو جوجن كهاد ليس تاس وحا كسي درن قبر كلو إيدن اللي يراد قبر دك المقعد وحالي يرادا المقعد وحالا بها المقعد يقم مقن أذيك كل لي قبر داس كان المقعد ويقم مقن هاي مرة روح فيسبوك أي سجر قبر لي يراد ياسمين الحمد لله إله وقرقاري واتاد وأنت والله نستي فيسبوك إيه لايف جيبي واسكدافتي marka waxaan u sheegayaa dumarka Soomaaliyeed ilaahaygeedan oo takabaqa oo toobad keena comment iyo like inta raadinaysin diintiina iyo yani sharaftiina iyo ilaalsada comment iyo like wallahi waxba idin tarimays adduunyo waa tan waa laga tagaa tan kale idin sheegaa waxay tahay in 2000 oo qof oo daawanaysa yani ama comment ka bixinaysa ama share gareynaysa xumaan hadaa aragtaa daadan suuli karin waa laga tagaa lama share gareey lama faafi marka waxaad ogaateen qofka share gareey iyo qofka like ka bixiyo qofka comment ka bixiyo qofka daawuna inta bina isku mid yihiin marka waxaan ilaahay uga baryeynaa iyo inta muslimiintan ugu wada baryeynaa in ilaahay soo hanuuniyo farxiiskor laakiin sheekh dabcaseer waa sheekh waa nin rag waxa uu mustaqbalkiisa ayhiisa kuma dheelay waa sheekh wacdi waa tan kale waa nin rag laakiin dumar had ma laga yaabaa gabadhaas farxiiskor in yani maanta la guursado haddii wax waliba la sheegay wallahi ma oga ajaanib laakiin Soomaali inuu guursanayo lama way biri markuu ninkaas u guursado meelay wixii la taagnaanaysaa galmada saan waa isaan iyo nal ma fiicna iyo mugd ma fiicna marka waxaan dhihi lahaa ilaahay uu toobadkeen oo ilaahay ku unta ka baq walaalay muslimaad tahay hadda kristan tahayna noo sheeg hadda muslim tahayna waxaan ilaahay uu ka reeba ka har wuxuu ilaahay ku farna qaado wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh